السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halkan waa maskax koriye channel waxaan isbedel ku sameeynay magacii ahaa xigmadaha maanta channel waxaynu jeclaysanay inaan u bedelno maskax koriye channel. waxaan maanta idin soo gudbin doonaa 5 arrimood oo lagu gaaro horumar ganacsi. Soomaalidu waxaa lagu amaanaa inay yihiin dad ganacsi ku wanaagsan walow aysan inta badan lahayn waxbarasho ganacsi ama way aragnimo caalami ah. ganacsade ahaan dhashay waa la noqdaa ganacsade ahaan laguma dhashay waa la noqdaa. haddaba halkan waxaan ku eegaynaa 5 qodob oo lagu gaaro guul ganacsi. rabitaan. qofka ganacsadaha wanaagsan ah waxaa lagu yaqaanaa inuu marka hore leeyahay rabitaan weyn oo ku aadan fikradiisa. waa qof jecel waxa uu sameeyo isla markaana doonaya inuu ka meel dhaliyo. 2 aragti dheer. qofka ganacsadaha wanaagsan ah waxa uu leeyahay aragti dheer oo ku wajahan ganacsigiisa iyo sida uu ku guul gaari karo. indho la'aan laguma bilaabo ganacsi. qofka waa inuu leeyahay aragti qeexan oo muujinaysa waxyaabaha uu sameeyo iyo sida uu u sameeyo. 3 waxqabad. qofka ganacsadaha wanaagsan ah waxa uu sameeyaa waxqabad degdeg ah. hadal iyo fikrad kaliya meel laguma gaaro ee waxa lagu guul gaaraa in aad ka miro dhaliso fikradaada oo aad ficil u bedesho. 4 go'aan. waa waxa ugu muhiimsan ee lagu yaqaano ganacsadaha wanaagsan. qofka isla markiiba isdiiwan marka caqabad ka hor timaado ma ahan ganacsade wanaagsan. qofka hawlkarka ah waxa lagu yaqaanaa inuu leeyahay go'aan joogto ah oo uusan niyad jabin fikradiisa ilaa ka miro dhaliyo. 5 waqti. qofka ganacsadaha wanaagsan ah waxa uu yaqaanaa waqtiga ugu wanaagsan ee hawl la sameeyo. waxa uu ka faa'iideystaa daqiiqad kasta oo waqtigiisa ah. waa ka 5 arrimood oo lagu gaaro horumar ganacsi. haddii aad ku fikirayso inaad noqoto ganacsade ka fikir arrimahaas oo qiimeyn ku sameey inta aadan talaabo qaadin. waxaan si xushmad leh idinkaga codsanaynaa channelkeeni maskax koriye inaad subscribe noo saartiin furataanna gambaleelka si aad ula socotaan macluumaad kasta oo halkan aan ku soo gudbino. like share comment aadan naga ilaabin. waad mahadsantihiin.